faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ku bilowday qarxiyo oo aroornimada hore ee saaka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka qayb oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Baxda ee gobolka Galgaduud halkaas oo dagaal xooggan ku dhaxmaray ciidamada militariga Soomaaliya oo garab ka helay dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab ayaa u suurta gashay in subaxnimada hore ee saaka ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka qayb iyagoona burburiyay xarumaha isgaarsiinta deegaanka iyo soo kala gawaari dagaal khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkii al-shabaab ee saaka ku soo qaadeen deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud hase yeeshee ciidanka dawladda oo garab ka helay dadka deegaanka ayaa si rogaal celis ah waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga Galmudug ayaa lagu yiri saaka oo ay taariikhdu tahay 7 November sanadka 2022 waxa ay al-shabaab weerar ismiidaamin ah ku qaadeen deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud iyagoona adeegsaday laba gaari oo qaraxyo ah iyo sidoo kale dagaal foolka fool ah sidoo kale wasaaradda amniga Galmudug ayaa sheegtay in ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan ee ku sugan halkaas ay ku guuleysteen inay fashiliyaan mid kamid ah qaraxyada halka mid ka kalena uu ku qarxay ciidamada agtooda afyeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay al-shabaab ku jabiyeen dagaalkii saaka dhacay deegaanka qayb ee hoostaga degmada Baxda ee gobolka Galgaduud kadib markii al-shabaab ay saaka weerar ismiidaamin ah ku soo qaadeen saldhig militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka qayb oo ka tirsan gobolka Galgaduud sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Soona General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sidoo kale sheegay in khasaare ay gaarsiin al-shabaabkii weerar ku soo qaaday deegaanka qayb dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii qaraxyada ku bilowday ee saaka al-shabaab ku qaadeen deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud halkaas oo dagaal xooggan ka dhacay wasiirka oo wareysiis iyo warbaahinta SMS ayaa sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo soo kale dadka deegaanka ay si weyn iskaga difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab isla markaana ay gaarsiiyeen khasaare xooggan wasiir Falagle waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay wali ku raajoogaan farxadka maleeshiyaadka al-shabaab oo saaka weerar ku soo qaaday deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud Axmed Faarax Maxamed SMS TV deegaanada Galmudug